kulan wanaagsan daawadayaasheena aanu jecelnahay kusoo dhawaada qayb kale oo ku saabsan xeeladaha indhasarcaadka. Warbixintan waxa aynu ku sharaxaynaa qaar ka mid ah xeeladaha ugu cajiibsan una xiisaha badan ee waqtiyadii ugu dambeeyay lagu soo bandhigay barnaamijyada Got Talent-yada. Indhasarcaadyada lagu soo bandhigo American Got Talent iyo Britain Got Talent ayagaa sii kala xiisa badanee. kuwan waxaanu ku soo kala qaadanaynaa xeeladaha indhasarcaadyada ay jileen indhasarcaadiyaasha xilligan ugu farsamada badan ee sida weyn loo xiiseeyo xeeladahooda. indhasarcaadka koowaad. indhasarcaad ku saabsan khiyaano turub. Shin Lim waa indhasarcaadiye caalami ah oo si weyn loola dhacay xeeladihiisa. Fariidnimadiisa darteed wuxuu hantay bilado iyo abaalmarino caalami ah oo lagu bixinayay indhasarcaadinta. waa tan xeeladiisa turubka ku saabsan. wuxuu wataa horin ama kurjin turub ah. wuxuu ku daadinayaa miis madow dushiisa. gabar ka mid ah guddiga garsoorka ayuu ka codsanayaa in ay mid ka doorato, kadibna erey ama magac ku qorto. Shin Lim turubkii ayuu dhexda ka gelinayaa kuwii kale, kadibna waxa uu sameynayaa indhasarcaad aan caqligal ahayn. waa turubkii uu dhexda geliyay oo haddana dusha sare soo saaran. kadib xeelad kale ayaa xigta. isla turubkii ayuu inta shaarka kor u qaado xabadkiisa ku tirtirayaa. waaba turubkii oo caddaaday. kadibna lambaradii iyo sawirkii turubka ka tirtirmay ayaa xabadkiisa ku sawirmay. waaba xeeladan aan u jeedno ee aan sheeko badan u baahnayn. intaas kuma eka. isla sawirkii turubka ayuu xabadkiisa ka soo tirayaa oo uu turubka ku soo celinayaa sidii uu markii hore ahaa. hagaag sir ayaa jirta ay xeeladan ku tiirsan tahay. si aad si sahlan ugu fahantid xeeladda, si fiican ula soco. marka hore aan ka bilowno sidee ku suuro gashay in turubka Shin xabadkiisa ku sawiran iyo midka ay gabadhu qabsanayso ay isku mid noqdaan. marka uu turubka ku daadiyay miiska ayaa uu xeelada bilowgeeda adeegsaday, taasoo ah in turubka uu miiska ku safay oo idil ay hal nooc yihiin oo ay isku wada eg yihiin. mid kasta oo ay gabadhu dooratana waxa uu u eg yahay sawirka isaga xabadka ugu sawiran. tan labaad, in sawirka turubka uu ka soo muuqdo Shin xabadkiisa waa xeelad kale oo aan ku xaqiijinayo in markii uu masraxa soo galayay uu xabadka ugu sawirnaa. waana tattoo hore xabadkiisii loogu sii diyaariyay. maxaa caddayn u ah in uu hore xabadkiisa ugu sii diyaarsanaa? bal si degan u fiiri qayb ka mid ah sawirka oo xabadkiisa ka muuqda marka uu indhasarcaadka bilaabayay. sidoo kale waxaa caddayn kala ah aaway magacii ama ereygii ay gabadhu ku qortay turubka wejigiisa. maxaa keenay in sawirku soo muuqdo qoraalkii gabadhana la waayo? taasi micnaheedu waxa uu yahay sawirka xabadkiisa ku yaala ayaa ka horeeyay qoraalka iyo doorashada turubka ay gabadhu samaysay. xeelada kale ee ku saabsan in turubka dhexda la geliyay kadibna uu kor ka soo muuqday. sidee arrintan suurtagal ku noqotay? soo wax la yaab leh maaha. aan kuu sheego, waa xeelad fudud. turubka ugu koreeya ma ahan turub caadi ah oo la mid ah kuwa kale. hadda ayuu si hoose intuu u soo qabtay uu turubka ku soo dhex daray. turubkaas ugu koreeya si fiican u fiiri. afka hore ayaa laga jebiyay ama laga qalloociyay. marka si caadi ah loo fiirinayo waxa uu u ekaanayaa turub badan, laakiin waa hal xabo oo afka laga qalloociyay. turubkaas ayuu ka hoos marinayaa midkii uu gabadha ka qaaday, laakiin waxaa loo malaynayaa in turubka badan dhex bartanka laga geliyay. kadib turubkii uu qalloociyay ayuu tartiib gacanta ugu laabayaa isaga oo qarinaya sidan oo kale. kadibna waxaa si fudud ku soo muuqanaya kii ay gabadhu qoraalka ku samaysay, wuxuuna sidaas ku noqonayaa turubka ugu koreeya. turubkaas uu gacanta ku qariyay wuxuu si hoose ugu tuurayaa miiska oo hoos ku leh qaanad yar oo furan. taas waa qaabka uu u adeegsaday xeeladda ah in uu turubka soo kormariyo. hagaag sidee turubka uu caddaan uga dhigay oo sawirkii ku dhignaa uu ugu tirtirmay xabadkiisa? waa xeelad kale. horta sawirka xabadka ugu yaala waa anaga ka soo sheekaynay in uu yahay tattoo markii hore xabadkiisii ku sii sawirnaa oo u sii diyaarsanaa. sida uu turubku caddaan isugu bedelayna waa qaabkan ay sharaxaadiisu soo socoto. way sahlan tahay xeeladan. turubka ay gabadhu qoraalka ku dhigtay iyo midka la jebiyay ee ah kan ugu koreeya
waxaa kasii hooseeya mid kale oo wejiga hore ka cad. waa midka uu nooga dhigayo inuu xabadkiisii ku tirtirmay. haddii aad si taxadar leh u fiirisid waxaad garan kartaa inuu 2 xabo oo turub ah isla hayo, isagoo nooga dhigaya in hal xabo uu yahay oo kaliya. fiiri geeska ay fallaartu ku aadan tahay, 2 xabo in ay yihiin ayaad fahmi kartaa. markuu gacantiisa xabadka geeyo haddana si fiican u fiiri, labadii turub ayuu soo kala reebayaa. kii gabadhu ay qoraalka ku samaysay ayuu gudaha ku soo reebayaa, isagoo bannaanka u soo saaraya midka caddaanka ah. marka uu dadka tuso taatuuga xabadka ugu dhigan oo loo maleeyo in uu turubkii halkaas ku tirtirmay, ayuu si qarsoodi ah turubkii qoraalka ku dhignaa afkiisa ku soo qabanaya mar kale. waa intaas uun. waxaan rajaynayaa in aad qaybtan fahamtay oo aad aragtidaada nala wadaagi doontid. indhasarcaadka labaad. xeelad ku saabsan ciyaarta cube-ka. ciyaartan cube-ka wax af Soomaali lagu yiraahdo oo gaar ah ma hayno, laakiin waa muuqaalkan idin muuqda. Stephen Brandage ayaa dhowr jeer xeeladan uga qayb galay barnaamijka hibooyinka gaarka ah ee American Got Talent. waa xeelad yaab badan, bal daawo waxa uu sameynayo. wuxuu u tagayaa guddiga garsoorka barnaamijka. wuxuu la soo baxayaa box cube ah. wuu isku qasayaa, kadib waxa uu ku ridayaa baakad uu wato. dhowr ilbiriqsiyo kadib waxa uu soo saarayaa cube-kii oo nidaamsan oo isku aadan, yacni sidii la rabay ah. kadib baakadii ayuu ku duuduubayaa guddiga hortooda, isagoo tusinaya in mid kale uusan ku jirin. kadib Simon oo guddiga ka tirsan ayuu ka codsanayaa in uu mar kale isku qaso cube-ka. mar kale ayuu baakada ku celinayaa, haddana ilbiriqsiyo gudahood ayuu soo saarayaa 2 xabo. midkii uu Simon isku qasay iyo mid kale oo hor leh. laakiin la yaabku waxa uu yahay in 2 xabo ay isku qaab isugu qasan yihiin, oo haddii la isku aadiyo mid kasta uu isku eg yahay, oo haddii la isku fiiriyo hal xabo oo kale yihiin. sidee loo sameeyay indhasarcaadkan? xeeladani waxa ay ku tiirsan tahay hal sir, taasoo ah in waxa aan halka baakad u aragno uu yahay 2 baakad oo isku dhex samaysan. ciyaarta cube-ka qofka ugu khatarsan waxa ay ku qaadan kartaa ugu yaraan xoogaa ilbiriqsiya ah, laakiin suurtagal ma aha in baakad lagu rido iyagoo isku qasan kadibna inta la soo saaro ay ku soo baxaan kuwa nidaamsan. xeeladu waxa ay tahay in wax ka badan 2 cube ay baakadaha ugu kala jiraan oo qaarkood ay u sii diyaarsan yihiin. kaliyana waa uu kala bedelayaa. intuu mid baakada ku rido ayuu soo bixinayaa mid kale oo diyaarsan. laakiin dadku waxay u malaynayaan kii baakada lagu riday inuu yahay oo isagoo nidaamsan laga soo dhex saaray. tusaale, si fiican u fiiri. cube-ka uu Simon ka qaaday 4 xabo oo jaale ah ayaa isku meel ku yaala. kadib baakada qayb ka mid ah ayuu ku riday, kadibna qaybta kale ee isla baakada ayuu 2 kale ka soo saaray. baakada oo 2 qaanad leh, qayb ka mid ah waxaa ku jira cube-kii Simon laga qaaday, qaanada kalena waxaa ku jira kuwii uu sii diyaarsaday. waa la kala bedelay oo kaliya. marka uu soo bixiyo baakadii ayuu bedelayaa mid kale oo ay cube kale ku jiraan ayuu hoos ka soo qabanayaa. haddana si fiican haddii aad u fiiriso waxaad garan kartaa in baakadu aysan faaruq ahayn oo dhexdeeda ay cube kale ku jiraan. waa intaas oo kaliya. indhasarcaadka saddexaad. Josephine Lee waa mid ka mid ah gabdhaha ugu caansan dhinaca indhasarcaadka. kubad kuusan oo hawada duulaysa ayay Got Talent-yada ku soo bandhigtay. intaas kuma koobnee, xeelado si fariidnimo ah loo jilay ayaa daba socda. buufin yar oo sida kubadda u kuusan ayay hawada u diraysaa, kadibna iyadoo aan taabanayn ayay si dabacsan u maamulaysaa. buufinkii ayaa hawada iska heehaabaya, isagoo cid celinaysana aanu jirin. si ay dadka ugu xaqiijiso, giraangar ayay dhexgelinaysaa oo ay dhinacyada ka marmarinaysaa si loo arko in aan cidina hayn. si la yaab leh, buufinkii ayaa haddana keligiis ku xaroonaya sanduuq masraxa yaala oo markii hore buufinka laga soo saaray. waxaa kasii daran, markii ayada laftigeeda inta ay sanduuqa dhex gasho ay indhasarcaad kaloo yaab lehna tusayso. dhowr buufin oo marooyin ku daboolan ayaa iyaga oo heehaabaya sanduuqa ka soo baxaya, kadibna dhulka ayay si degan u degayaan. taas beddelkeedna gabadhu sanduuqa ayay isku daboolaysaa, kadibna iyada oo sanduuqii dhex gashay ayay haddana noqonaysaa mid ka mid ah buufinadii dhulka yaalay.
laba sir ayaa jirta oo ay xeeladani ku tiirsan tahay. Tan koowaad waa midda keentay in uu buufinka kaligiis heehaabo. Tan labaadna in buufinka uu gabar isku bedelo. Ugu horeyn, buufinka kaligiis heehaabaya laba daraf ayaa dun adag oo laakiin khafiif ah ay ku xiran tahay. Dunta khafiif ahaanshaheeda darteed iyo goobta midabka iftiinka ee ka jira ayaan suurtagelinayn in la arko duntaas. Laba nin oo masraxa labadiisa gees kala fadhiya ayaa kala haya oo maamulaya. Si aad u fahantid, waxaan kugu tusaaleynaynaa sawirkan kartoonka ah. Xariga labada daraf buufinka ugu kala xiran yahay qaabkan ayay sanduuqa ugu dhex marsan yihiin dunta. Marka ay sanduuqa ka soo saarto ayaa duntii labada dhinac ku kala xirnaa laga maamulaya, iyaduna way noo jilaysaa. Caawiyaasheeda ayaa meel dahsoon ka maamulaya labada xarig ee buufinka ku kala xiran. Si fiican u fiiri, marka ay gacanta kor u qaadayso ee iska dhigayso in ay buufinka kor u dirayso, ayay duntana kor u sii jiidaysaa si ay caawiyaasha ugu muujiso in ay hawshooda qabsadaan. Waayahay, maxay tahay sirta ku saabsan buufinadan kale oo midkood ay isla gabadhu isku bedeshay? Waxaas kuuskuusan ayaa midkood ah silig isku xiran oo sida goobada u samaysan. Sidii buufinka ayaa dun labada daraf ay ku kala xiran yihiin oo si qarsoodi ah loo maamulaya. Haddii dhulka la dhigo oo la kala jiido, goobadu waa ay baaba'aysaa oo salax dhulka ku siman ayay noqonaysaa. Laakiin sidee buufinkaas ama siligaas goobada leh uu gabadha isu bedelay? Sirtu waxa ay tahay waa xeelad mechanism ah. Sanduuqa dhexdiisa waxaa ku qarsoon gabar kale oo u labisan sida gabadha indhasarcaadiyaha ah oo kale. Sanduuqa marka ay kor ka faydo, lama arki karo gabadha sababtoo ah qaybta hoose ayay ku jirtaa. Josephine Lee waa gabadha indhasarcaadiyaha ah. Marka ay sanduuqa dhex gasho, maro ayay isku daboolaysaa, kadibna marada dhexdeedii ayaa gabadhii kale ay madaxa nuuxnuuxinaysaa si loogu maleeyo isla Josephine in ay tahay oo sanduuqa ku sii xaroonaysa. Laakiin gabadhii uun baa sanduuqa ku laabanaysa. Ayadoo sii jeeda ayay weliba muujinaysaa qayb madaxeeda ka mid ah. Qof kasta markaas wuxuu u qaadanayaa in gabadhii indhasarcaadiyaha ahayd ay sanduuqa dhex galayso. Laakiin tii indhasarcaadiyaha ahayd ayada oo maro ku daboolan oo sidii buufinka madaxeedii u lalaadinaysa ayay dhulka degaysaa, kadibna si kadis ah ayay halkaas uga soo muuqanaysaa. Waa intaas oo kaliya. Waxaan rajaynaynaa in aad ka heshay warbixintan. Haddii ay dhab tahay in aad ka heshay, fadlan like saar. Aragti ahaanna xeeladee ugu cajiibsanayd indhasarcaadyada aan warbixintan ku furfurnay. Nala wadaag aragtidaada adiga oo mahadsan. Inta aynu ku kulmi doono warbixin kale oo xiiso leh. Nabadgelyo, nabaadiino iyo nooli kulanti oo xiiso leh. Amaana Allah.